aabahan wuxuu timaha ka jaray gabdhihiisa waliban isagoo jeclaan jiray inuu dhalo wiilal balse wuxuu dhali jiray mar walba gabdho markaas uu gabdhihiisa wiilal soo kasiinay isagoo magaalada ku soo fasaxa dhammaan dadka ku caminayaan ku qoslayaan sidoo kale gabadhiisa aad iyo aqoonta wiilasha la dagaalamay laakiin tan way celcelinaysa tababar ay ku dilay balse maanta waqtiga ay ka qaldan waliban isagoo soo kacay waxay 3 saac subaxnimo kaasoo markaa ayago meel fadhiyo wuxuu ku dhaanay waa soo tababaran aabe maanta waan soo daalnay adig maxalliga soo kacday dib isagoo sameynaa meel ay gabadha weyn ka daminaysa iyadoon rabin maanta in la baro legdanka dib walaash mar walba ninka ay isdagaalayaan mar walba dhulka ay ku dhufanay aabiin uu ku xanaaqay waliban isagoo gabdhiisa mar walba canaananaya kalna ayago waxay jecel yihiin soo muujinayaan gabdhanimadooda aaboodana oo diidaya isagoo ku dhahay idinka gabdhimateen waxaa tiin rag markaas waxay meel arag saaxiibadooda waliban ayago ka ciyaar waliban si aad u neekinaya si duq isagoo arees wuxuu imaanay arooska gabdhiisa ayuu ku xanaaqay isla markaan uu ka tagay ayaga meesha ay ku ilmeenayaan waliban aad murugaysan markii arooska imaanayeen ma aysan soo sheegin aabahooda aad ay murugaysan yihiin markaas midaan waxa uu sheegay aabadeenu aad u murugay sababtoo mar walba xoro inuu kaliya gabdhiisa wiilal kale waxa uu sheegay mar walba inuu ku cadaadinayo tababar aan caadi ahayn aadan waxa ku dhisa aabaaga nasiib aad leedahay dub sidaas kugu sameeyay sababtoo aabaaga aad ku jecel yahay ku dhaysa kaas ayagan waxa bilaabay inay ku tababartaan legdanka waliban ayaga ka guuleysanay markaan xariifkan sababtoo xariifkan mar walba naftooda ka dhulkaynu ku riday gabdhaha markaan waa markiis dhulkaynu ku deynaysa isla markiina aabihi uu ku farxay gabdhiis waxa ay sameynayso xitaa daqiiqad ay qaadayso kadibna uu soo waday wuxuu keen halkan wuxuu ku dhaanay waxa ay tartamayso gabadheeda waliban ayadoo koob maanta isoo qaadaysa markaas xariifkan ka diiday kadibna uu ku xanaaqay wuxuu ku dhaanay gabadheeda macaan kirsan markaan gabadh meesha loo ogolaan waana soo gelinaya ciyaarta ayagoo dadkooda meesha joon ku farxayaan kaasi qof walba wuxuu bilaabay qoftaan hadii aan helay inuu dhooyo waxyaabo kale waxa la nin door markaas waxay dooranaysaa mid kaan isla markaas in dagaalka ay galaan waliban ayagoo aad isku dagaalay ilaa ninka dhulka ay ku rido kiyo idin walayaabaan sababtoo gabadh midaan ma aysan ka filin ninkan aad iyo waxnaaqay gabadha isla markaan wuxuu bilaabay gabadh inuu xifaalto laakiin ayada midaas ka meelaysa sababtoo gabadh aad iyo aad adiga waxaan soo tababaray aabaheeda isla markaan aabihi wuxuu ku dhahay gabadheedu inaad guuleysto laakiin gabadh dhulka la dhigay ugu dambeyn aad ay guuleysanaysa